Macallimad ayaa waxa ay bilowday ama daraasiisay ardaydii ay wax u dhigaysay, waxayna aragtay in ardayda dhigata fasallada hoose ay aad isku neceb yihiin, ayna is arki karin. Waxayna bilowday inay ilmihii waaniso, ayna u sheegto in cuqdada iyo nacaybku ay yahayn wax fiican. Balse macallimadii waxay aragtay ardaydii inaysan hadalkeeda waxba ka soo qaadaynin. Waxayna tiraahday, waxaan samaynayaa ciyaar. Ciyaartaas oo soconaysa muddo isbuuc ah. Waxayna dhahday arday kasta waxaa laga rabaa inuu soo qaado baradhooyin. Arday kastana baradhooyinka wuxuu ku soo qorayaa ardayga uu neceb yahay. Mid kastana baradhadii ayuu soo qaatay, wuuna soo hordhigay. Waxayna ku tiri, baradhadan waxaad haysanaysaan muddo isbuuc ah. Guriyihiina ayaad nageysanaysaan, meel kasta oo aadaysaan waad qaadanaysaan. Ilaa isbuuca uu ka dhamaanayna meel iskama dhigaysiin. Ardaydii way dhibsadeen baradhadii, ileen way soo ureysay. Waxayna sugi la'aayeen isbuuca intuu ka dhamaanayo. Isbuucii markii uu dhamaaday, ardaydii iyo macallimadii ayaa isku soo laabtay. Macallimadani waxay weydiisay sidii ay ahayd shucuurtooda markii ay wadeen bacdan baradhada ah. Ardaydii ayaa dhaheen aad ayaan u dhibsanay, waxayna ahayd mid aad u ur badan. Macallimadii ayaa bilowday inay u sharaxdo dantii ay ka lahayd baradhadaas ay ilmaha u dhiibtay. Dabcan baradhadu waa sida nacaybka aad idinka isku qabtaan oo kaleeto. Meel walba ayuu idin raacayaa xumaanta ama nacaybta isku qabtaan. Isbuuc ayaad baradho ku soo heeweyseen bac, balse waxaad rabtaan qalbigiina inaad ku heesaan inta ka dhiman noloshiina cuqdad iyo nacayb. Waxaynu akhrisaa aayado Qur'aan ah. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ardaydii ayaa bilaabay inta wixii ka dambeysay inay isjeclaadaan oo isku soo dhawaadaan.